asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa duulihi miidiya. ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. ibnu khalduun waxaa loo arkaa aas-aasaha cilmiga bulshada ee casriga ah iyo aqoon-yahan wax badan ka bedelay taariikhda iyo dhaqaalaha caalamka. magaciisa oo dhammaystiran waxaa la yidhaahdaa abu zayd cabdiraxmaan binu muxamed binu xasan binu jaabir binu muxamed binu ibraahim binu cabdiraxmaan binu khaalid khalduun alxadrami. waxaa kaloo loo yaqaanaa ibnu khalduun. wuxuu dhashay maalin arbaco ah 1dii ramadaan 732 hijriga. ibnu khalduun sida culummada taariikhyahanada ay sheegaan wuxuu ku dhashay dalka hadda loo yaqaano tunuusiya, waxa uuna ku soo barbaaray isla dalkaasi. ibnu khalduun xeerarka waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay jaamacadda zaytuuna oo ahayd jaamacadihii ugu horeeyey ee caalamka oo ay lahaayeen muslimiinta. ibnu khalduun wuxuu ahaa erbixiyeen, dhaqaaliyahan, taariikhyahan, sharciyaqaan, xisaabyahan. markii uu ka qalanjibiyey jaamacadda azaytuuna wuxuu ku noolaa magaalooyin kala duwan oo waqooyiga afrika ah. kadib wuxuu u wareegay magaalooyinka basikra, garnaadha. ibnu khalduun wuxuu kale uu u safray dalka masar, halkaasi oo uu suldaankii barquuq ku sharfay una magacaabay inuu xukumo degmada maaliki. wuxuuna halkaasi ku sugnaa muddo rubac qarni ah. ibnu khalduun halkaas ayuu ku dhintay 1406 miilaadiga isagoo jira 73 jir ah. waxaana lagu aasaasay meel u dhow baab al nasr oo ku taala waqooyiga qaahira, isaga oo ka tegay raad dhaxalgal ah oo maanta saameyn ku leh dunida. ibnu khalduun waxaa loo arkaa aas-aasaha cilmiga bulshada ee casriga maanta. qoyska ibnu khalduun waxay ahaayeen qoys cilmiga iyo suugaanta ku xeel dheer. waxa uuna xifdiyey qur-aanka ibnu khalduun yaraantiisa. aabihiina wuxuu ahaa macalinkiisii ugu horeeyey ee waxbara. awowgiisa oo joogay andalus iyo tunuusiya waxay ay haysteen mansabyo siyaasadeed iyo mid diimeed oo muhiim ah, waxayna ahaayeen dad magac iyo maamuus ku leh dadka bulshada ee halkaasi ku noolaa. qoyska waxa ay andalus ka soo haajireen bartamihii qarniga 7 ee hijriga, waxaana ay u guureen dalka tunuusiya xilligii dowladdii xabsiyiinta. ibnu khalduun asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa xadramuut, qoyskiisuna waa xadrami. wuxuu taariikhdiisa ku xusay ibnu khalduun kitaabkiisa adduruus ee loo yaqaano taariikh ibnu khalduun inuu ka dhashay faraacinkii saxaabigii waa'il bin xajar iyo awowyaashiisna ay ahaayeen xadrami. ibnu khalduun isaga oo aqoontiisa wata wuxuu u anbabaxay magaalada basikra, halkaas oo uu ku aqal galay. kadibna 1356 wuxuu u aaday faris, halkaas uu abu anaan almarinini ku daray golihiisa cilmiga oo uu adeegsan jiray inuu ku soo koobo ama uu wax badan ka qoro taariikhda iyo xukunkiisa iyo dhacdooyinka soo mara. intaa kadib ibnu khalduun wuxuu u safray dalkaasi maqrib, ayuu u safray qasrigii ibnu salaama ee aljeeriya ku yaalay. halkaasina wuxuu ku noolaa 4 sano. waxa uuna usii gudbay ibnu khalduun qorista kitaab adduruus. waxa uu dhameeyey qoraalkii dalka tunuusiyana oo u nuqul ka mid ah u gudbiyey suldaankii tunuusiya markaas haystay, isagoo ku lifaaqay ibnu khalduun codsi ah inuu u dhoofo dalka xijaas si uu usoo guto waajibaadka xajka. kadibna ibnu khalduun uu ka codsaday inuu raaco markab alexandriya u socda si uu usii gudbo
magaalada qaahira. ibnu khalduun halkaas ayuu ku qaatay magac iyo mansab intii uu ku noolaa noloshaasi, waxaana loo magacaabo garsoorkii maaliki ee masar. caruurnimadiisa waxa uu ku bartay masjidka dooma cilmi aada u fara badan. ibnu khalduun waxaa lagu tiriyaa aas-aasaha cilmiga bulshada uguna horeeyey aas-aaskeeda casriga ah maanta. waxa uu la yimi ibnu khalduun aragtiyo ku saabsan xeerarka magaalnimada, dhisidda dowladnimada. taariikhyahanada ibnu khalduun waxay u tixgeliyaan shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin qorista taariikhda, xisaabaadka iyo cilmiga bulshada, balse waxaa ugu caansan kutubtii uu qoray ibnu khalduun alcibr wadiiwaan almubtada walkhabr fi ayaam alcarab walcajam oo ka kooban 7 mujallad oo kan ugu horeeya loo yaqaano muqadamatu ibnu khalduun. waxaa ku jira kitaabkan muqadamatu ibnu khalduun aragtiyo aada u fara badan, waana hordhac aada u ballaaran oo ku saabsan kitaabka ibnu khalduun oo kaga hadlay kuna aas-aasay aragtidiisa ku aadan juqraafiga, cilmiga arrimaha bulshada, cilmiga xidigsiga iyo xaaladaha aadanaha iyo dabeecadahooda. ibnu khalduun waxaa lagu tiriyaa inuu yahay aabihii ama aas-aasihii cilmiga bulshada, isagoo salka u dhigay casriga nidaamka iyo maamulka dowladnimo ee bulsho ay ku noolaato misne ay ku horumarto kuna hogaamiso dunida. ibnu khalduun waxa uu la yimid aragtiyo kala duwan, aragtidaasi oo ugu caansaneyd casriyeynta arrimaha